135 litir oo maandooriyaha qamriga kadib markii ay ciidamada bilayska gobolka Togdheer ku qabteen deegaanka Cadow Yururo ka tirsan gobolka Togdheer saddex eedeysanayaal iyo gaarigii ay ku wadeen qamrigaasi ayaa waxa saaka tijiyay maray kaamiradiisu ku booqatay xafiiska qaybta booliiska gobolka Togdheer taliyaha qaybta booliiska gobolka Axmed Maxamuud Guutaale oo arrimahaas iyo arrimo kale oo tiro badan ka hadlaya waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim guud ahaan Universal TV runtii aad baan u faraxsanahay inaad saaka nagu soo booqato halkan xafiis guud ahaan nabadgelyada gobolka way fiican tahay aad iyo aad ilaahay mahadi alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaa noogu daran xagga tracks ama waxa loogu hawl badan baalka la yiraahdo maandooriyaha baalka khamriga la yiraahdo xashiishad ka wax iyaduna way soo gashaa gobolka 18 كل جاري خمرية بتشري شيء دور عليه لو قطعي وصدق عسكري أو قرا أي جورها بيننا بهاي كوديها بيننا بهاي بنشريان كتبنا وين نرسوا حدين هل كان أنتي عامل لبقى على هل كان إذا مكتوب حرين ما ننكو جارين وحلو تقني يجوا صدق حدي عسكري لمش مرة إلا أكيد رصاص وحيهي النويس كريدة كلهم إلا بابور وكرايا ويرمي طبق كقاعدين كمبيوتر مركا نارجي بانكو قاعدني يلا محبوس ويقول مركا يعي لكن أنا رعدة ذي أنا كهلي خمر جينا أي قاري كركوري شيء أنا توبيو تبغونه مركا gaariga waan soo rarnay gaariga ku halkan yaala kulli sawir bad ka sii qaadan doontaa 3 sano iyo 3 bilood iyo 1 milyan oo shilin Soomaaliland midkii loo yaxay shaatankii bisha isagana waxaan qabanay khamri gaari khamri sida oo sayrafa ayaan caday wajid caday ku qabanay iyo 35 litir wala 35 litir oo khamriya iyo sidii iyo afar maxbuus adigu afar baa watay mid baa cararay saddex baan qabanay صدق دي محبوس يجارجي يخمر جينا كل صور بس كسي قادم تبغى كم يهلا يمكن محرسين هاي سجنوا سياق دون تاني ديال خديو برواقة آذن محمد شبكة عالمي جود وين نيوز مقالة برعو